السلام عليكم waxaan filayaa inaad dhammaantiin wada ogtihiin in maalmaha baraha bulshada dhammaan laga doodayay inay fair iyo baratan ay ku balansanayeen kala reebtada labada nin ee caanka ah ee Mark Zuckerberg ee shirkadda Meta ama Facebook si guud iyo Elon Musk oo dhammaantiin wada garanaysan balse waxaan isleeyahay qofna isma oranayn tartankii lagu balansanaa ama fairka lagu balansanaa xilliga la isku ogaa xilli koreys ayuu bilaaban doonaa laba maalin ka hor 5 bishan July waxa caalamka baraha bulshada ku soo biiray application cusub oo loo yaqaan Threads waa application cusub balse fikrad ahaan iyo concept ahaan aan cusbeen hore u jirtay yaani si kala dan u niraahno waa Twitter kan hore u naqaanay kaliya Elon Musk ayuu baan joogin meeshaas sidaad wada ogtihiin xaradii Twitter ahayd in ayaa ku gatay 40 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waa Elon Musk deedna bedelay qawaaninteedii soo kordhiyay shuruuc iyo nidaamyo hore loo aqoon tusaale ahaan oo kale dadka caanka ama celebrities ka waxa lahayn calaamad TikTok ay lahaayeen wuxuu yiraahdaa waxa iska joojiyay lacag bad ku bedelanaysan hadda kadib wuxuu soo kordhiyay qofkii wuxuu yiri calaamada buluuga agata iyo qofka ma taqaanaa aan calaamadaas lahayn adeegsiga iyo mataqaana inta Twitter maalintii akhrin kara inta xabo u soo bixi karta tiro kala duwan ayuu keenay taasoo Elon Musk hore u ballan qaaday in uu Twitter ka dhigo doono meel dadka dhan u wada furan democracy ah qof walba wixii soo kordhin karo balse sidaas aan wada ognahay dhammaan maalmihii dambe xoogaa sidii wax loo filayay way ma aysan noqon dad badan ayaa ka yaacay bartaas haddaba application ka cusub ee Threads muxuu yahay dhabahan adeegsigiisa iyo galistiisu ma mid aad u adag sababtoo ah waa mid ku imaaday gravitation ama garab asagoo helaya hadda isweydiina garabka waxaan ka hadlayno waxa weeyaan dabcan Threads waxa la imaaday shirkadda Meta oo ah mid iskale Instagram haddii aad account ku lahayd Instagram-ka waxa aad kugu fudud inaad account ka furatid bal iska dhaaf magac cusub email iyo lambarkaaga ma baahna markaad ku dhufatay application-ka ismarkiiba wixii Instagram-ka aad ku lahayd ay ku soo galaya ciwaankii handle-kii @something ku ahaa qoraalka ugu qorna biography-ga dadkii xitaa aad follow gareyn jirtay qof walba sidii kugu soo baxay yani waa adiga gurigaaga laga keenay oo sariir badan iyo kuraas wax badan yaalan hadda xogaa ibkameel ka yara aruursan oo si guud markaad u fiirisana Twitter u yara lagu keenay oo kale sababtoo amaanti markaan ka hadlayno caalamka baraha bulshada Facebook ayaa ah still wali mid hogaaminaysa yani application-da Facebook waxa adeegsata tiro ku dhow ama ka yaraan 3 bilyan oo dad ah si active u adeegsata 3 bilyan oo dad ah halka Instagram-ku haysta 2 bilyan yani haddii aan dhahno marka Threads ayuu sameeynaya Instagram soo kordhiyay waxay ka micno tahay dal laha malaayiin qof oo muwaadiniin laha oo la yiri jasiirad cusub halka la idinkaga sameeyay kaalay aan soo booqanay way fududadkaas inay hal mar muhaajiriin halka laga keeno oo dib u dejin hor leh ama cusub loo sameeyo taas waxaan oran karnaa shirkadii isku dayay Jack Dorsey oo ahaa Twitter kinkii hore laga wareegay ama mulkiilihii hore ama maamulihii hore ninkii soo hindisay shirkadda Twitter lagaga nasiib badan yahay sababtaas wuxuu sameeyay application la yiraahdo Blue Sky wali waxa ku jirta backing sidii la rabo ma shaqeynayso dadka waiting list bay galiyeen wali riya iyo khayaal ay ku dhisantaa balse maanta Threads bilowgeeda hore si xamlada ama dagaalka ku bilaabeen runtii waa mid so far successful ama guuleysatay ayaa la dhihi karaa dabcan waa ilaa hadda inta ku jirno waxa soo socda ma garan doona marka bisha malabka dhamaato xageeba sheekada soo gudbiyo koran doonta dhabti ma garanayno dhanka kale Threads logadiisa ama sumadiisa ku soo galay webka waxa weeyaan midaan hore wada naqaan ahayd yani hadda Gmail @hotmail oo kale email mid ku isticmaali jirnay weyn tii un baa wax yar laga yara bedelay taasoo fududeynaysa inaysan ugu adkaan yani la dhawr logadan maxay ahayd la dhihin oo dhabtii mid inay fudud la jaan qaad noqonaysa marka application-ka cusub ee Threads ma dhigi karna waa threat to kill Twitter yani waa khatar la oran karo waxa dili karta Twitter ma dhigi karna bal aan u imaano sida caadiga ah bulshooyintu ama bulshooyinkii hore oo xitaa dhowr sano ilaa 5 sano 10 sano ka hor waxay bulsho isugu imaan jirtay haddana waliba Soomaaliyeed fadhi ku dirarka miiska shaxda lagu cayaarayo aroosyada iyo meel kastoo dadka kulmaysa dhalinyarada xaafadda markay joogaan barxadda isugu imaan jireen saas oo kale hase yeeshee asrigan maanta la joogo mahad badan ha gaarto caalamka baraha bulshada waxa soo baxay virtual communities ama bulshooyin isku wax daneynaya haddii kuwa kubadda ciyaara meel ay ku kulmaan haddii kuwa daneeya fanka iyo sugaanta meel ay ku kulmaan haddii kuwa jecel cilmiga iyo falaga wixii la xiriir meel ay ku kulmaan waxa laga yaabaa maanta inaad qof u ku lahaa maantay dad mutaabiciin ama dad badan la socda u ku lahaa Twitter kumanaan bal malaayiin inuu ku lahaa laga yaabaa maanta markuu la wareego ninka loo yaqaano Elon Musk meeshii waxa isku bedeshay meel dukaan leeyahay soo doon ka yeeli kara buug doon soo saari kara
marka taas waxay kugu adkeynaysaa adigoo meeshaas sanado badan ku sameynayay bulsho dhisayay maanta in lagu yiraahdo meesha nin baa la wareegay isaga gur marka Threads oo dabcan ay ka dambeysay shirkadda Meta lehna odaygan loo yaqaan Mark Zuckerberg oo shirkadooda hadda Facebook sida magaca guud ahayd u bedeleen Meta tan ognahay inay ka imaatay metaverse oo ahayd waqtigii coronavirus markii caalamka uu wada saameeyay internet-kan adeegsigiisu soo siyaaday oo uu siir xoogaa halka nacfi fiican ba ku jira aan lacag badan gashano dabcanna ay malaayiin ama balaayiin dollar ku khasaareen waliba maalmahan aan afkiisa laga maqal metaverse wax la mid ah laakiin sidaan ka fogeyn maanta waxa la soo kordhiyay ama uu leeyahay Mark Zuckerberg waxaan keenaynaa Fediverse haddaan si kale u niraahdo waa Federation First oo ah hadda maantay Federation marka la yiraahdo application kala duwan oo isku furan يعني هذا سان ognahay waxa jira wax loo yaqaan cross posting yani hada application kala wax ka soo qaadanaysa mid kala soo gelinaysa hada tusaale ahaan waxa aad u fudud inaan link ka soo qaadno YouTube ka aan soo dhigno Facebook laakiin Facebook qoraal gal in YouTube kala dhigo dhabtii ma fudud ama yani mid oo very effective ama si loogu talagalay ma ahan marka Federation First gan waa meel ay ku kulansan yihiin shirkado badan oo hadda ay ka mid tahay Mastodon oo ah meel hadda isugu tagaan dadkii hore uga cararay Twitter oo balan qaadaysa in ay tahay democratic ah in ay tahay shirkadda serfaradeeda dad ay maamulaan kala madax banaan hal qof oo shakhsi ama hal shirkad hoos tagayn oo xitaa ay ku fududaanayso sida hadda waxay kor soo xusnay malaayiinkii ama kumanaankii bulshadii aad dhisatay ee isku mabda ahaydeen haddii maanta la dhaho Threads waa la xirayaa waa la joojinaya ama si kale loo bedelayaa waxa ku fududaanaysa waxa inaad raratid oo meesha ku sii wadatid yani Azhari app haduu soo baxo kale inaad Azhari app dhex gashid kumanaankaaga ama mutaabiciinteeda malaayiinta halkaas ku wadatid aad ay kugu fududaanaysaa dhanka kale handle-ka ama magaca lagu soo baaray hadda wali aniga kayga sida hadda Instagram-ka YouTube-ka iyo meel kala duwan ay ahaayeen waa Azhari MCX marka hadii Fediverse-ga uu sheegayo hadda ay sheegay ay soo hirgeliyaan oo hirgasho wuxuu noqon karaa @Azhari MCX @threads.net oo yani web ahaan in loo boqdo kale oo meeshii doona laga galo ay soo kordhinaysaa dhanka kale Threads dabcan bilow ahaan soo dhaweyntiisa koobaad aad bay u fududahay waa minimal waa meel dadka dhan soo wada iman karaan waa meel adeegsigiisa soo galistiisa aad u adkeyn balse waxyaalo badan ayaa ka dhiman wali horumarin ayuu u baahan yahay tusaale ahaan oo kale dadku waxay aad ugu jecel yihiin Twitter-ka waxa ka mid inuu lahaa hashtag yani waxbaad samaynaysaa maanta hashtag war fadhiga laga kaco kale marka qof kasto fadhiga laga kaco wax ku soo qoro soo raaciya dadka isku hal khad buu gelinay ama maanta maxaa saaran ajendaha ugu badan ee laga hadlay dal hebel ama maanta dalkeena ama mowduuc hebel maxaa laga hadlay marka dhan hashtag asar ugu socon jiray hashtag-as maanta malahan Threads inuu soo kordhin doono inuu keeni doono lama hubo taasna waxay keenaysaa dabcan in dadku ay dhacdo daba ordaan oo dhahan maxaa soo kordhay maxaa imaaday tii maanta wali mid jirta maahan maxay soo kordhin doonaan ma garanayno sidaan wada ognahay dhanka kala Soomaali hadaan Twitter-ka wuxuu noo ahaa fagaaraha aan kaga doonno siyaasadda waliba luqadda Ajnabiga English-ka noo ku hadalna marka waxa su'aal ayadana sidoo kale Soomaali Maxamed maanta Threads imaadaan ama sidoo kale siyaasaddu bay ka dooni doonaan mise waxyaalo kala duwan way soo kordhin doonaan bal aragno maxaad idinku isleedin Charlie way la soo shirtay karaan anaga se ka adeegsada ahaan ka customer ahaan maxaa nagaga aadan inaan application ka guurno maalkas application kale u guurno maxay soo kordhinaysaa dabcan ana hal qodob ayaan raacinaya oo ah anigu dhamaan waxaan soo gudbiyo ama mowduucan aan ka hadlo aad meel kasta iga daawataan haday tahay TikTok Facebook Instagram ka Facebook iyo email kasta ay noqoto waxaan u fiiri waxa inay yihiin yani aakhirana biri waa waxba iima jirto biri ma dhiman karaa laba maal ka bacd saddex maal inta ii dhiman ilaahay unbaa og wax iga haray inay noqdaan oo hadii dib loo soo fiiriyo aan dadku soo habaarin bal hadaan xogayro ducaa ka helo ama qofka noloshiisa u iftiimiyo ay wacan tahay marka saan wad ognahayna ma waxay noqon doontaa Threads wuxuu noqon doonaa meel Soomaalidu hadana dambigooda iyo intii awal lagu yaqaanay ay soo kordhin doonaan mise waayo aragnimadooda xigmadooda aqligooda garaadka Ilaahay ku manaystay meel uga adeegsadaan ay noqon doontaa adiga adeegsadase maxay kula tahay fikirkaaga khaaska ah Charlie aad baan salaamaya fikirkiina aad bay muhiim u yahay haday tahay halkan platform-ka hadiga daawanaysan iyo haduu yahay Threads oo aad Azhari MCX iga soo heli kartaanba warkiina waa sugaya aad baa mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh